Kani waa Stonfi oo customer hilib u diyaarinaya. Tanna waa gabadhiisii Sofia. Customerka ayuu kala soo daahaya hilibka. Si dhaqso leh waxa uu imanaya meesha rag loo yaqaano Fignis oo meesha qulbaya waxna ku qorqoraya. Dhiig bay ku daadinayaan. Fignis waa dadka hilibka diidan ee hilibka aan cunin ha ahaado hilibka doofaarka iyo waxyaabihi la mid ah. Dabeetana dibadda ayuu u soo boodayaa ninka loo yaqaano Vicent. Mid kamid ah ayuu ku dhagaya. Madax ayaanu ka bixinaya. Kuwii ayaa ku soo noqonaya. Waanay la dagaalamayaan. Waanay ka furfurayaan. Sofia ayaa soo baxaysa. Waanay iyadoo murugaysan. Inaga marayaan ku oranaysaa. Kuwan waa Mike iyo Stonfi. Waa saaxiibada. Kuwana waa saaxiibada Sofia iyo Vicent. Mike iyo Stonfi waa la kala dhahaa. Labadoodu saaxiib ayay leeyihiin. Waxay uga sheekeynayaan inay bangiga aadeen iyagoo isla deynka doonta. Laakiinse loo soo diiday oo aan la siin. Suuqa iyagoo dhex maraya ayaa waxay arkeen raggii soo weeraray Figniska mid kamid ah oo baaskiilada wata. Waanu istaagayaa Vicent isagoo gaariga ku dhufanaya. Dibadda ayuu soo baxayaa. Wuxuuna eegayaa inuu nool yahay in kale. Sofia ayaa dareemaysa inuu dhintay. Wuxuu oranayaa aanu yeedhna askarta si aanu qaadno. Laakiin Sofia ayaa ka diidaysa. Waxay ku leedahay waa lagu xirayaa. Muddo dheer ayaana lagu jaraya waana la ogaanaya inaad Figniska ka xanaaqdo. Guriga ayay keenayaan. Hilibkiisii ayaana jarjarayaan. Waxaanay doonayaan gebgiisaba inay iibiyaan oo meheeradoodii hilibka u bedelaan. Hilibkiisii eyga ayuu u tuurayaa badh kamid ah. Eygii markuu badh cuno ayaa haddana badh kale ayuu u jarayaa u tuurayaa. Eyga haddana hilibkii uu cunayaa. Hilibkiisii ayaanu yaryaraynayaa. Sofia oo qolka joogta ayaa ku oranaysa ilaa seexan maysid ee qolka kale aad iyadoo baqbaqaysa. Qolkii kale subaxii markay soo baxeen ayuu weydiinayay hilibkii xalay ay jarjareen. Waxay ku oranaysaa waxaan geliyay meesha mashiinka ee hilibka lagu yaryareeyo. Dadna hal markiiba customer baa soo galaya. Customerkii ayaa hilib weydiinaya. Dabeetana wuxuu ku oranayaa inuu hilib aanu oo hilibkii dhamaaday. Balse Sofia ayaa hilibkii dhadhaminaysa. Soo oranaysaa kan baan ka iibinaynaa tarayga. Dabeetana way weydiinayaan hilibkan muxuu yahay. Iyaduna way dhadhaminaysaa customerkii. Dabeetana mid kale soo galaya haddana isagoo isla intii daadi. Haddana waxay ku oranayaan customerkan hilibkan waxa laga keenay Iran waana doofaar. Dabeetana haddana isagiina way u laalaabayaan. Macaamiishii ayaa soo badanaysa iyagoo dareensanayn in waxaan hilib bilaadan yahay iyagoo laga dhaadhiciyay in hilibkan uu yahay hilib Iran laga keenay oo doofaar. Dabeetana macaamiishii ayaa u badanaysa. Waxaanay jeclaanayaan bayna hilibka dhadhamiyaan iyaguna. Habeenkii ayay guriga ku karsanayaan gacan kamid ah hilibkii ninkii ay dileen Figniska ahaa. Dabeetana isagu wuxuu ku oranayaa aanu ka tanaasulno oo halka ku ekaano. Laakiin Sofia ayaa ka diidaysa. Waxaanay doonaysaa in hilibka sii iibiyaan oo mar walba ay ku dhaqmaan. Kani waa Jack iyo gabadhoodii oo ninka qaba gabadhoodii hilibkii ay u keenayaan. Isagu Fignisku ka mid yahay ragga hilibka neceb. Iyaga iyo Figniskana cadaawad ayaa dhex taala. Laakiinse hilibka mar rabo oranaya. Sharaab cab bay ku oranayaan. Haddana mar rabo oranaya. Iyagoo ku qadarinaya intooda ay iskaga aamusayaan oo laakiin hoosta ka canaysan. Keeg ayay haddana u soo qaadayaan. U diidaya mar rabo ayuu ku oranayaa Jack. Laakiinse iyagu hoosta ayay ka cadhaysan yihiin. Waxaanay ku ixtiraamayaan intooda. Sharaab ayay iska cabayaan. Waxa soo qaadanayaan seef ama waxaan loo yaqaan bange iyagoo doonaya inay ugaarsi tagaan. Ninka buuran ayaanay damaaciyeen. Habeenkii oo dhan isu gaabinayeen. Markay arkeen isagana dila uu qayliyay. Dib ayaanay uga carareen si aan askar uga iman. Gaari ayay dib u soo koreen iyagoo naftooda la cararaya. Waxay imaadeen gurigoodii iyagoo ka soo cararay. Subaxii waxay iska dhigayaan ragga Figniska ee hilibka diidan iyagoo doonaya inay baadhaan oo ilaashadaan oo wajiyadooda arkaan raggii Figniska ee hilib diidi jiray inay ugaarsadaan oo wajiyadooda qarsadaan oo arkaan. Ninkan oo ka mid ah Figniska ay la balamayaan iyagoo ku oranaya anigu Fignis baan nahay. Waxay soo orayaan waa keligii dil balse rag kale soo baxaya oo saaxiibo la yihiin. Dabeetana baalkii dib u asharaya wuxuu iska dhigayaa raggii Figniska rag kamid ah ee hilibka necba. Waxaanay ku balamayaan in bari ay hudheel burburin doonaan hilibka lagu iibiyo oo waxay soo xiran doonaan. Markay meeshii arkaan ay arkeen meeshoodii inay iyaga tahay meeshoodiiba. Laakiinse way istadraacinayaan way iska raacayaan. Meeshii ayaana la burburinayaa oo gamta loo joogsanaya. Intaas oo dhan way ogaayeen iyaguna waana istadraaciyeen. Subaxii markay meeshii imaadeen
ayaa waxa askartii ayaa timi iyadoo Mike iyo Stanfield joogaan ay markii dambena imaadeen Vincent iyo Sofia waxay aadeen gurigoodii iyagoo gurigiisa ka jooga ayuu ku oranayaan hilibkan iska dayno laakiin iyadii ayaa diidaysa waxay ku leedahay waan sii wadaynaa dabeetana way kala cadhoonayaan dibadda ayaana u kala baxayaan ninkii mudalabka ayaa u imanaya dabeetana uu la yar garanayaa ninkan waa nin ragga fitnesska hilibka diidan buu ka mid yahay balse way damaaciyaysaa iyadoo isla u soo dalab oo dabeetana markuu guriga keeno adishaan ninkii waa guriga soo galaya dabeetana waxa ka soo dabagalaya Stanfield waxay soo qaadayaan mindiyo ninkii buu koonaya guriga iga bax oo uu soo maraateenaya ninkii markuu diiday inuu guriga ka baxo way dilayaan dabeetana isna hilibkiisii bari ayay meesha keenayaan iyagoo yareynaya oo doonaya inay iibiyaan kuna faraxsan hilibkiisii qayb ka mid ah ay iibinayaan dabeetana waxay bilaabayaan inay ugaarsadaan dadka maalin walba qof ayay soo dilaan macaamiishu way sii badanaysaa xabadaha ay qaataan qoryahay ku soo dilaan baangaday ku soo dilaan hilibka qiimihiisii baa kordhay ugaarsi bay ku jiraan maalin walba iyo habeen walba waxay ugaarsadaan dadka iyagoo doonaya inay intay dilaan ay dabeetana kariyaan ama isagoo eedhin ay iibiyaan ninkan ayay dileen imika waxa isku soo noqday Mike iyo Stanfield afartii saaxiibada iyagu lama oga inay hilibka iibiyaan way salaamayaan waxaanay ku oranayaan waxaa jira Stanfield ninkeeda Mike ayay si raf dhaafayaan ninka ay qaba Sofia ee loo yaqaano Vincent way hadal dhaafayaan cabaar bay caadi hadalka dhulka u dhigayaanoo isla hadlayaan ilaa aakhirka hilibkii uu ka shakiyay Mike isagoo la hilibku ma hilib bilaadan baa kana soo dhex saaray wax fargal oo kala dadna way qabsanayaan way islaynayaan biyaha ay iskula dhacayaan dhagta ayuu ka goosanayaa waanu calaashanayaa markii ay wax dareemayaan Mike iyo Stanfield dabeetana saasay ku kala tagayaan gurigoodii markay aadaan subaxii ay haddana magaalada u soo baxayaan iyagoo soo aaday hudheelkoodii ay hilibka ku iibin jireen iyagoo doonayana inay wax iibiyaan balse waxay arkayaan inantooda ninkii qabay jeeg isaguna fitnesska ahaa iyo inantiisii waanu raali gelinayaa maalintiina ku afxumaaday iyagoo hilibka iibinaya oo laakiinse aanu ogeyn inuu hilibku hilib bilaadan ahaa dabeedna cabaar ayay wada hadlayaan waana isla shiwaarayaan aakhirka waxay soo baxayaan iyagoo gabadh qabsanaya haddana dadna qofkiina jarjaraya haddana waxay ka iibinayaan customerka askari ay hilibka ka iibinayaan isagoo fahansanayn laakiinse hilibkan inuu macaan yahay ayuunba iyagu arkaan oo ma moodayaan inuu hilib bilaadan yahay waxaana lagu yiri hilibka waa made in Iran gacan ka mid ah gacanadii bilaadan ay jarjareen ay ayaa la soo baxaya isagoo aygu qaniinayo dabeetana aygii ayuu ka qaadayaa waanu xareynayaa dabeetana gurigooda ay ku soo noqonayaan isagoo gabadhiisa ku leh aan iska dayno anu waan ka dhaartay waan iska daynaynaa dabeetana iyaduna ay ku leedahay hadda ayay sheekadu macaan tahay xilli la daayo ma aha dabeetana guriga waxa ugu imanaya Mike gabadhu waxay doonaysaa inay dilaanba oo isagana bari iibiyaan balse isaga fahansan waxa ninka loo yaqaano Vincent dibadda uu saaraya xoranaya oraska tag iyaduna uu fahansan yahay inay ninka damaaciday inaan intooda qaba subaxii ay haddana kumanigoodii imanayaan iyagoo hilibkii sidii u iibinaya oo aanay kaba qasnaynba hilibkii waxay iibiyaanba macaamiishii waxay ku oranayaan maanta hilibku go'an yahay qofkii uu imaadaba hilibku go'an yahay maadaama uu doonayo inuu isagu iska daayo hilibkii dadku hilibkan ay la qabsadeen marba qof baa imanaya hilibka weydiinaya iyaduna ciil baa haya waxa uu imanaya fitnesskii raggii hilibka diidana meeshii ayaana imanayaan waxaanay xasuusanayaan inay maalintii ay dileen isagu guduhu ku jira gabadhiyo dibadda taagan bay qabsanayaan waanay dilayaan markuu soo noqdo maalintii ayuu arkayaa gurigiisii inay hor taagan yihiin ama hudheelkii raggii fitnesska gaadhigoodii gudahana ay ugu jiraan wuxuu soo qaadanayaa baangihiisii iyo mididiisii markiiba midba madaxa kaga dhufanaya dabeetana intii kalena way kala yaacayaan mid kale isqabsanayaan kiina wuu dilaya haddana dabeetana mindi ayuu isagana ka taagayaa oo mindi ay isdhaafsanayaan dabeetana fitnesskii madaxa ayay mindi ka gelinaysaa gabadhii dabeetana way haddana ka soo saaraysaa meeshana waxaa ku niman hilibadii waa la ogaanayaa oo Mike iyo Stanfield saaxiibada ahayna ka shakiyay baa booliska u gudbiyay
waana la soo xiray muddo dheer ka bacdina waxaana la ogaaday inay dad badan cuneen oo Mike baa ku dhagtu iga goostay waana u sheegay